beesha runtii mudankii musharaxiinta ee gobolka saaxil iyo degmada berbera halkan aanu doonayno haddaanu nahay beesha daarood ismaaciil ee ku nool gobolka saaxil inaannu shaacinno oo aannu ku dhawaaqno muddadii faraha badnayd ee aannu ka tashanaynay cidda aannu masiirkayaga gobolka ku aaminayno laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay maanta ay bishu tahay 17 bishii saddexaad 2021 waxaanu halkan ka shaacinaynaa anigoo ku hadlaya afka beesha oo ah afhayeenkii iyo odaygii beesha daarood ismaaciil ee gobolka saaxil laga bilaabo maanta waxaan halkan kaga dhawaaqayaa in aan codkayaga iyo cududayada iyo maalkayaga iyo caqligayagaba aanu la berber istaagayno labada musharax ee kala ah cabdilaahi xuseen aw maxamed oo u sharaxan golaha wakiilada iyo cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf siciid oo u sharaxan golaha deegaanka ee degmada berbera labadaa xildhibaan haddaanu nahay beesha daarood ismaaciil ee gobolka saaxil ku nool waxaanu la berber taagannahay hadday ahaan lahayd odayaasha dhallinyarada dumarka waxaanu la berber taagannahay cududayada iyo codkayagaanu haddii ilaahay raalli ka noqdo 31 May aanu la berber taagannahay hal qodob baan digniinaan halkan ka dirayaa maanta hal qodob oo digniina oo muhiima ayaan walaalayaal doonayaa halkan inaan maanta ka diro qodobka aan halkan ka dirayaa waxa weeyaan ee muhiimka ah beeshan duruufo adag bay soo martay hawlo badan baa la soo gudboonaaday xildhibaanka maanta golaha deegaankii beeshan abaal weyn buu ku lahaa wax badan buu ka qayb qaatay rag buu jeelasha kala soo baxay cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf rag buu damiinto maanta damiinkiisii ku jooga magaalada nin aan waxba ku darsan oo maanta doonaya walaalayaal inuu beesha dhex qaado waxaanu uga digaynaa inaan lagaga faa'iidaysan beesha duruufaha adag ee ay ku jirto inaanay ragga qaarkood intay hanti iyo dhaqaalo dhallinyarada tusto inaanay kaga faa'iidaysan waa digniin waxaanu ballan qaadaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo ninka caynkaa ku kaca ee na dhex qaada ee doonaya inuu codkayaga kala furfuro shir jaraa'id baanu qaban doonaa waxaanu kaga hadli doonaa ninkii soo dhex gala beesha arrinkaa iyo go'aankaa ay isku raacdeen mooyaane ninkii kale ee soo dhex qaada ee doonaya inuu kaga faa'iidaysto siyaabo kale ballan waxaanu ku qaadnay haddii ilaahay raalli ka noqdo inaannu qabanno shir jaraa'id oo aannu ku cambaarayno laamaha ay ku habboon tahay iyo dacwaddayadan inaannu gudbinno maanta beel ahaan waxaannu isku raacsiisannahay oo cuqaashayadii ayna berber taagan tahay oo odayaashayadii ayna berber taagan yihiin oo nalagu ansixiyey oo aannu go'aanno caadifad aan ku salaysnayn go'aanno rasmiya aannu ku qaadannay inaannu soo saarno labada xildhibaan ee magacyadooda aan idiin sheegaa cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf iyo cabdilaahi xuseen aw maxamed cabdilaahi xuseen aw maxamed labadaa xildhibaan inaan soo saarno sidaasaannu go'aan ku gaadhnay waan idinka digayaa anigoo ku hadlaya odaygii reerka ah afka beesha ku hadlaya inaan duruufaha adag iyo wakhtiga adag ee beesha ku jirta lagaga faa'iidaysan in lagu dhaafo maanta codka in badan baanu aragnay laakiin anagu beeshan maanta labadaa xildhibaan ka soo jeedaan go'aamo cad baanu isla gaadhnay dan wadaag siyaasadeed baanu yeelnay
mustaqbalka waxaanu doonaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inaanu annagu isa soo sharaxno inaanu ku tiirsanaanu doonaynaa inaanu isgarabsannaanu doonaynaa ninka doonaya inuu waqtiga adag kaga gudbo waqtiga maanta uu kaga gudbo in yaroo ma garanaysaa haddii ilaahay raalli ka noqdo sandareero yar u daadaadiya beesha oo dhalinyarada kaga faa'iideysto waanu uga digaynaa ballan waxaanu ku qaadnay inaanu shir shiraayid ka qabanno ka ashkatoonno ka hadalno cidna dhex geli kartaa ma jirto cidna kala furfuri kartaa ma jirto sidaasaanu ku wada soconnaa reer ahaan ku soconnaa waxaan aad iyo aad halkan uga mahad celinayaa beeshu shirarkii ay yeelatay odayaasha deeriyahan ee labadaa xildhibaan ay ka soo jeedaan sida wanaagsan ee qiimaha leh ee wixii aanu ku ballannay ay u fuliyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iminkana waxaa noo yimid oo nala jooga odayaashayadii cuqaashayadii baa jooga arrinkaas cuqaashii deeriyahan baanu iska aragnay saxiixyaanu isla qaadanay arrimo adag baanu isla qaadanay waxaan doonayaa wixii iminka ka dambeeyay haddii ilaahay raalli ka noqdo in beesha daarood ismaaciile gobolka saaxil ku nool codkooda haddii ay joogaan gobolka meel kasta iyo hadday degmada joogaan waxa maanta laga bilaabo oo ah 17 bishii saddexaad nalagu ogaado in aanu nahay cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf iyo cabdilaahi xuseen oo maxamed assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu siciid u sheegay waxaa la isku raacsan yahay boodhkan dhabarkayga sawirkiisa ka aragtaan beesha daarood ee gobolka saaxil codkoodii maanta labadaa xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo u tartamaya golaha degaanka ee degmada berbera iyo cabdulaahi xuseen maxamed oo u tartamaya golaha wakiilada codkii beesha daarood oo saaxil sootiille ahayd 4 bilood baa laga soo shaqaynayay iyadoo aan diiwaangelintu dhicin waa lagu soo heshiiyey maanta waa gebagabadoodii annagu ka odayaal ahaan iyo ka waayeel ahaan iyo ka cuqal ahaan rag badan baanu waxaanu kaga nahay oo beesha daarooda oo hawshaas saaxil u yimi inaannu wax ka ogaanno markhaanti ka ahaano hawshaas gebagabadooda iyo dhammaystirkeeda ilaah idinkiyona waxba ka soo noqon sidaasaynu ku gunaanadatay labadii dhinacna la ysula qaatay insha allah waxaana rajaynaynaa waa wada doorasho ee gobolka saaxil inay wada doortaan golaha degaanka oo gobolka saaxil oo aan beesha cid u joogin maanta dee cabdirashiid baa u wada ah beesha daarood iyo beesha deerayahanba xildhibaanka golaha degaanka oo gobolka saaxil maxamuuda wakiilada dee waa la wada joogjoogaayo lafteeda inkastoo cabdulaahi dee doorkiisa laga rabo uu ka mid yahay iyada dee waa la wada joogjoogaa insha allah sidaasaa lagu kala ducaystay khaatumo khayr baa lagu kala helay in badan baa hadda hadalku soo socday ee hadda shaacintiisii iyo gebagabadiisii weeye sidaasaanu wakiil kaga nahay qolada iyada waayeelka iyo cuqaasha iyo socotada iyo ganacsatada rag badan oanu kaga soo qayb galoo dhaqan iyo ganacsataba leh oo hawshan maragnimadeeda aanu u nimiyo ogaanshaheenna sidaasaanu dhammaan waxaanu kaga nahay wakiil dhaqan iyo siyaasi iyo ganacsi iyo culimo meelaha kale oo joogaan beesha daarood insha allah waana arrin muhim oo weyn oo taxaaluf ka dhacay oo la gebagabeeyey oo dhinacyo badan laga eegay runtiina waxaanu u sii hambalyaynaynaa gobolka saaxil beesha daaroodoo degan oo halkaa magaciyada lafteeda aad iyo aad baan ugu sii hambalyaynaynaa aan kala baydhka lahayn ee beel ahaantaa ku degan aad iyo aad baan u boorinaynaa waxa aan halka maanta laysugu yimi oo aan ka shaacinaynaa haddaanu nahay beesha daarood ee gobolka saaxil ku dhaqan waxaanu shaacinaynaa in aanu maanta isku afgarannay beesha daarood ee saaxil iyo beesha deeriyahan inaannu isku afgarannay wax wada qabsi wada tashi wax wada dhisasho inaannu isku afgarannay sidaa darteed waxaan shaacinaynaa inaan codka gobolka saaxil ee degmada berbere codka beesha daarood in ay ku wajahan tahay oo ay leeyihiin labada musharax beesha deeriyahan ee ka soo jeeda baanu shaacinaynaa sidaasaanu u sheegaynaa cid alla iyo dee cidda aan ka warqabin sidaasaanu u sheegaynaa inaan maanta isku raacnay oo aanu codkayagii ay leeyihiin labadaa xildhibaan nahay inaanu labadaa musharax aanu isugu tagno oo aanu muruqayga maskaxdeydaba isugu geyno
si hufan oo macaan ula shaqayno inay dadku sidaa nagu ogaadaan dhallinyaradayada iyo odayaasha waayeelkayaguba iyo dumar iyo caruur inay sidaa u ogaadaan oo ay u guntadaan inaanu hawshaa ka qayb qaadanno dadka qof waliba hadaf uu leeyahay aragti uu leeyahay inaanu bartaa isugu wada tagno dhammaantayada waxa gobolka saaxil oo dhan jooga inay halkaa isugu tagaan nin waliba cid buu la soo baxaya cid buu wax la qabsanayaa tan faraaruq inaanaan yeelan saasaan ku boorinayaa halkan waxaa weeye oo maanta aanu isugu nimid magaca daarood iyo deerayahan annagoo yacni bahwadaag samaysanay foorguud ah abidkeeda ayaanu samaysanay marka sidaas ayaad ugu ogaanaysaan haddii alla siciid oday siciid u sheegay waxaa la isku raacsan yahay boodhkan dhabarkayga sawirkiisa a ka aragtaan beesha daarood ee gobolka saaxil codkoodii maanta labadaa xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo u tartamaya golaha degaanka ee degmada berbera iyo cabdulaahi xuseen aw maxamed oo u tartamaya golaha wakiilada codkii beesha daarood oo saaxil sootiilay ahayd 4 bilood baa laga soo shaqaynayay iyadoo aan diiwaangelintu dhicin waa lagu soo heshiiyey maanta waa gebagabadoodii annagu ka odayaal ahaan iyo ka waayeel ahaan iyo ka cuqal ahaan rag badan baanu waxaanu kaga nahay oo beesha daarooda oo hawshaa saaxil u yimi inaannu wax ka ogaanno markhaanti ka ahaano hawshaas gebagabadooda iyo dhammaystirkeeda ilaah idinkiiyona waxba ka soo noqon sidaasaynu ku gunaanadatay labadii dhinacna la isula qaatay insha allah waxaana rajaynaynaa waa wada doorasho ee gobolka saaxil inay wada doortaan golaha degaanka oo gobolka saaxil oo aan beesha cid u joogin maanta dee cabdirashiid baa u wada ah beesha daarood iyo beesha deerayahanba xildhibaanka golaha degaanka oo gobolka saaxil maxamuuda wakiilada dee waa la wada joogjoogaayo lafteeda inkastoo cabdulaahi dee doorkiisa laga rabo uu ka mid yahay iyada dee waa la wada joogjoogaa insha allah sidaasaa lagu kala ducaystay khaatumo khayr baa lagu kala helay in badan baa hadda hadalku soo socday hadda shaacintiisii iyo gebagabadiisii weeye sidaasaanu wakiil kaga nahay qolada iyada waayeelka iyo cuqaasha iyo socotada iyo ganacsatada rag badan aanu kaga soo qayb galoo dhaqan iyo ganacsataba leh oo hawshan maragnimadeeda aanu nimiyo ogaanshaheenna sidaasaanu dhammaan waxaanu kaga nahay wakiil dhaqan iyo siyaasi iyo ganacsi iyo culimo meelaha kale oo joogaan beesha daarood insha allah waana arrin muhim oo weyn oo taxaaluf ka dhacay oo la gebagabeeyey oo dhinacyo badan laga eegay runtiina waxaanu u sii hambalyaynaynaa gobolka saaxil beesha daaroodoo degan oo halkaa magaciyada lafteeda aad iyo aad baan ugu sii hambalyaynaynaa aan kala baydhka lahayn kolley cid kasta waxaa go-aanka u qaada waa odayaasheeda innagu haddaanu dhallinyaradii nahay waxaanu soo dhaweynaynaa go-aanka ay noo qaadeen odayaasheedu noo qaadeen waanunu ku taageeraynaa run ahaantii labadaa xildhibaan ay yidhahdeen taageer waanu taageeraynaa dhallinyarada kale beesha daarood waxaa ka codsanaya inay labadaa xildhibaan ay dee odayaashu inoo qaadeen aynu codkeenna insha allah wixii codkeenna aynu ku boobno dee ile wax kale ma jiraan markaa waxaan leeyahay cabdirashiid waa ninka keliya tan u arkay inuu waxna ii tari karo gobolkana wax tar muuqda ka sameeyey ganacsi ka sameeyey horumar shaqo abuur fara badan markaa cid ii dhaantay markaan garan waayey isagaan inaan codkayga siiyo haddaan anoo ku hadlayo afka dhallinyarada ee beesha daarood ismaaciil waxaanu la midaysannahay ku waafaqsannahay kula soconnaa go-aanka ay odayaashu noo qaadeen ee ah inaanu taageerno la soconno codkoodana siinno labadaa xildhibaan ay noo keeneen cabdirashiid iyo cabdulaahi marka waxaan leeyahay waxaanu lagu ogaanayaa wixii imika ka dambeeya labadaa xildhibaan insha allah doorashooyinkaas waa doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo wakiilada annagu murashaxiin baanu sanaag baanu murashaxiin ka nahay laakiin idinka maadaama aad reer saaxil tihiin oo isku duuban tihiin anigu waxaan idinkula talinayaa bal masiirkiinnu meesha uu ku jiro iyo ciddii aad xilfi la samayn kartaan ka tashada intaas ayaan anigu maanta ku soo dhowaynayaa berberaha soo saaro culayska ganacsigeena berberaha ku soo celino dhul cusub iyo daara cusub waa inaynu dhisnaa weliba anigu meel kasta waan ka idhi waxaan idhahdaa war berbera waa xudunteenii
berbere maanta labada xildhibaan shalayna aadan baynu ku lahayn maantana labadanaynu ku yeelanaynaa insha allah bidmillaahi kariim waadna ku guulaysan doontaan ilaahayna idinku garab galo guddi baad qabsanaysaan dhallinyaro iyo waayeel isugu jirta oo haween ku jiro waxaa weeye labadaa bilood ee hadhay wixii xamar ka hargeysa ka yimaada dad badan baa kaadhal haysta oo hargeysa degan wixii dhallinyaraha waan idiin soo sheegayaa anaa idinku soo xidhaya anigoo ku hadlaya magacayga magaca xildhibaanada ama murashaxiinta beesha deerayahan ee halkan inala jooga magaca dhaqanka aqoon-yahanka wixii halkan inagala jooga waxaan ilaah baa mahadle waxaan mahad ballaadhan u celinaynaa odayada cuqaasha madax dhaqameedka ganacsatada dhallinyarada aqoon-yahanka mid maqan iyo mid joogaba ee matalaya beesha daarood ismaaciil abtiyaashay allaha badiyo allaha daayo magacoodana alla ka wahow qaadee ee maanta halkan aanu ku wada fadhino taageerada iyo codbixinta loola diyaar yahay labadaa murashax ee cabdirashiid iyo cabdilaahi xuseen oo kala metelaya golaha degaanka iyo golaha wakiilada insha allahu tacaala mustaqbalkana ay noqon doonto inaanu noqonno labadayada beelood ee halka maanta wada fadhiyaa muxuu ahaa xulafo iyo bahwadaag siyaasadda iyo dhaqanka iyo ganacsigaba haddii alla idmo waana idin mahadnaqanaa abkiyaal wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam marka hore waxaan salaamayaa odayaasha madax dhaqameedka ganacsatada aqoon-yahanka iyo dhallinyarada beesha daarood ee maanta halka kan aanu shirka ku lahayn ku deeqay waxaa runtii qiimaha aada iyo aada u weyn dhinacayaga ku leh ballanqaadka aa siiseen maanta in labadaa xildhibaan ee hareerahayga taagan aa soo saartaan siyaasaddabana guud ahaan aynu bahwadaa ku noqonno hadday mid hoose tahay iyo hadday mid sare tahayba aada iyo aad baanu idinkaga mahad celinayaa waxaan kaloo idinka mahad celinayaa allahuma salli calaa maxamed ballanqaadka halkan ka bixiseen ee aad ku baaqdeen inaanu qof idinka baydhin inta gobolka saaxil ka degan beesha daarood guud ahaanba waxay nagu leedahay qiimo aada u weyn qiimo aada u weyn ayay nagu leedahay waanu idinka guddoominay waanu ku faraxsannahay waanu ka abaal celin doonaa diyaarna waanuu nahay marka ay timaadiyo marka ay hawli timaadaba inaanu garabkeeda istaagno walaalahayaa tihiin dad wada dhaqan oo wada nool bayna walba ahayn in badanna soo wada jiray maanta iskuma cusbin mar haddaynaan isku cusbayn ma nihin dad kala qaloonaya dad furaash ku wada seexanaya baynu nahay awalna ku wada seexan jiray maantana casuumaduunbaa inoo dheer iyo sida sharafta lee wanaagsan ee aynu isugu nimi sida aad nooga oggolaateen ee noogu baaqdeen codsigayagii dhinacayaga ka yimina ee ku saabsanaa xildhibaanadana boqolkiiba boqol baa ku mahadsantihiin aad iyo aad ugu mahadnaqayaa beesha daarood ismaaciil ee gobolka saaxil cuqaashooda odayaashooda dhallinyaradooda haweenkooda iyo waxgaradkooda haddii aan xuso odayaasha qaar ka mida caaqil cumar cabdulaahi cabdi caaqil mursal axmed xaaji geelle oday maxamed cabdi shirwac oday siciid maxamed buraale oday asad mahdi oday xasan miro cawaale oday xulbad aw axmed cabdulaahi iyo odayaasha kale ee goobta joogay waxgaradka ganacsatada dhallinyarada dhammaantiin waxaanu idinka mahadnaqaynaa oo cabdirashiid ahaan waxaan idinka mahadnaqayaa taageerada hiil iyo hoodaba ah ee cod iyo cududba ah ee aad garateen in maanta aad nagu taageertaan aniga
iyo cabdulaahi xuseen aw maxamed. soomaalidu waxay tidhaahdaa abaal nin guda waa la helaa, nin gala waa la helaa, laakiin nin gudaa waa yar yahay. waxaan ilaahay ka baryayaa aniga iyo cabdulaahi inaannu noqonno taxaalufka ama allianceska labada beelood ee aynu ka soo kala jeednaa ay wada galeen kuwii ka midho dhaliya inaannu noqonno ayaannu ilaahay ka baryaynaa. idinkana ballanqaadka codka kambeynka ololaha daaroodo keliya laydinka dooni maaya, waa inuu qof waliba ama nin kastoo daarooda ama gabadh kastoo daarooda, khaasatan dhallinyarada, dad deegaana oo reer daaroolaa oo reer barwaaqaa oo asal berberaa weeye. marka berberina qabiil may lahayn. haddii aa maanta garateen inaadna taageertaan, nin kastoo dhallinyaraa iyo inan kastoo dhallinyaraa waxaa laga doonayaa inuu keeno 50 qof 100 qof wixii uu keeni karo ee reer berberaa. annaguna waxaannu ku dadaali doonaa inaannu haddii ilaahay ka dhigo inaannu abaalkaa celinno. aniga iyo musharax xildhibaan cabdulaahi xuseen maanta laga bilaabo waxaannu ka duwannahay musharaxiinta isaaq ee gobolka saaxil ku tartamaya. 69 musharax baa ku tartami doona gobolka, 39 waa golo deegaan, 39 musharax golaha deegaankay ku tartami doonaan, 30na golaha baarlamaankay ku tartami doonaan. marka raggaa kale taariikhda waxaa maanta noo gashay oo na lagu caleema saaray oo koofiyado iyo cumaamado aanaan weligaya xidhannin naloogu geliyey oo ay noo gelisay beesha daarood ismaaciil ama noo geliyeen odayaasheedu. marka waxaannu halkan ka caddaynaynaa runtii faanna noo ah sidii uu cabdulaahi sheegay inaannu ka duwannahay musharaxiinta isaaq ee berbere ku tartamaya. aad iyo aad iyo aad baan ugu salaamayaa odayaashii halkan iminka ka hadlayey ee beesha daarood ismaaciil ee isugu yimi halkan ee cuqaal lahaa, ee odayaal lahaa, ee dhallinyaro lahaa, ee aqoon-yahan lahaa, ee waayo arag lahaa, ee tujaar lahaa, ee ganacsato lahaa. aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa taageerada weyn ee maanta aniga iyo cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf ayna siiyeen, ee ay nagu taageereen in ay haddii alla ka dhigo codkoodana siinayaan, beesha oo dhammina codkooda ayna siinayso. odayaasha haddii aan qaar ka xuso waa cuqaal iyo odayaal intaba. aan ku bilaabo ragga aan u mahadnaqayo: caaqil mursal axmed xaaji geelle, caaqil cumar cabdilaahi cabdi, oday maxamed cabdi shirwac, oday siciid maxamed buraale oo ah ninka hawsha isku soo dubariday ee labada beelood isu keenay ee muddada dheer ka shaqaynayay, inta badan nala shaqaynayey, oday asad mahdi, oday xasan miro cawaale iyo oday xulbad aw axmed. raggaasi mudnaan gaara iyo mahadnaq gaara ayaan u hayaa. insha allaahuna waxaannu noqon doonnaa kuwii halkaa ka sii wada taxaalufkaa siyaasadeed iyo taxaalufkaa dhaqan ee labada beelood ee gobolka saaxil ay bilaabeen, ee taageerada annaga nala taageerayana ay ku bilaabeenna aad iyo aad baannu insha allaahu uga abaal celin doonnaa. labadayadan xildhibaanno musharaxna waxaannu ballan qaadaynaa inaannu halkaa ka sii wadno oo aannu wixii odayaashu ay isku raaceen aannu hirgelinno sida ugu quruxda badan, waana waajibna saaran. aad baan idinku mahad celinayaa. maanta waxaan ku faanayaa oo aniga iyo cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf aannu ku faanaynaa labada musharax ee keliya ee maanta daarood ismaaciil oo dhammi ay taageersan yihiin, ee caleema saareen oo koofiyadda iyo cumaamadaha noo geliyeen, ee ay codkoodana na siinayaan, ee gobolka inaan gobolka musharax u noqdo gobolka golaha wakiilada inaan ugu noqdo cabdirashiid maxamed xaaji yuusufna ugu noqdo golaha degaanka ay nagu taageereen. maanta annaga sharaf weyn bay noo tahay. maanta labadayadaasaa waxay heleen sharaftii ahayd in beesha weyn ee soomaali laga yaqaan ee meel alla meel kastoo soomaaliya degto joogta ee maqal ee muuqa iyo maxaanku dhaha maamuuskaba ku leh inayna taageeraan oo
ay annagana caleema saaraan oo codkoodana siiyaan waa wax lagu faano aniga cabdirashiidna taasaanu maanta musharaxiinta kala dheerrahay